ciidanka sida gaarka ah u tababaranaya danab waa kuwa caafimaadkooda iyo badqabkooda jir ahaaneed aad looga taxadaro oo si gaar ah loo daryeelo taasoo u sahasha in waqtiyada howlgallada iyo tababarada ay guul weyn soo hoyaan xafiiska danab ee caafimaadka waxa uu ku dadaalaa hubinta iyo la socoshada caafimaadka askarta dheelitirnaanta cuntada ay cunaan iyo sidoo kale jirdhiskooda ciidanka kumaandooska danab hadda markaan kusoo biiray caafimaadkooda wax badan aan ka bedelay haddii ay tahay la tacaalida dhaawacyadooda haddii ay tahay talasiinta ciidanka iyo weliba qaabka ay macnaha ay uga hortegi lahaayeen cudurrada faafa ama ay noqon lahayd waxyaabaha oo sidoo kale sidii qofkii fisikaalkiisii iyo wixii uga shaqeyn lahaayeen waxyaabahaas oo dhan kusoo kordhiyey intaas in ka badan inaan kusii kordhiyo kor sii qaadana weli diyaaraan ah laba xidig leh Dr. Xasan Maxamed Maxamuud wuxuu mar kasta la talin caafimaad siiyaa askarta danab oo uu ku qaabilo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee ciidanku leeyahay si isku mid ah ayay askarta wiilasha iyo gabdhuhu u helaan adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo talooyinka la xiriira caafimaad ahaan qofkaas inta badan aan siino waxa kamid ah inuu qofkii macnaha isku dheelitirnaado cunadiisii iyo tababarkiisii waxaa inta badan ku dadaalan taas kamid salaan waajib sometimes inuu kale in bariis qalan oo kale xaga lamada la siiyo qofka in fiiskalaan ma dhismi karo cunadii la siin lahaa inay noqoto cunno balansiya oo qudradii leh oo hilibkii leh oo kalluunkii leh wax walba oo jirkiisa faa'iido nooc u leeyahay in loo sameeyo la siiyo laguna taliiqaad u isticmaalo askarta danab waa kuwa u furfuran oo qaata talooyinka dhakhtarkooda iyagana waxay weydiiyaan dhakhtarka waxyaabaha ay tahay inay sameeyaan si ay u joogteeyaan caafimaad qabkooda tani waxay keentay qubad iyo firfircooni u sahasha inay si fudud u howlgalaan oo ay ku guuleystaan howlgallada gaarka ah ay fuliyaan aad iyo aad howlgallo badan ka soo qayb qaatay sida Kismaayo Boolgaduud 35 cunugoo la afduubi jiray raggii oo ku halgamay oo gacan ku soo dhigeen isbitaal Beledoogle guutada kumaandoosta fadhigeeda taliskeeda 35 cunug qaarkood ayagoo waxba qabin ilaa iyo dhaawacyo fudud maayo waan keenay waan daaweynay wacyigelin sameynay dadkooda lagu wareejiyay alxamdulillah haddana waxbana ma halayso dagaalkii bariigay waxaan kusoo dhaawacmay oo al-shabaab iyo dowladda marka qarax waxaan kusoo dhaawacmay gacanta qarax iga soo gaaray ciidanka kumaandooska ciidan awood loo baawar leh waaye oo aalmiintada jecel tababarkan iyo cadowga sidii loo beegsala u foojigan taliska danab waxa uu ku dadaalaa dhaqaaleynta ciidanka haddii ay dhacdo in askari ku dhaawacmo furumaha dagaalka waxna looga qaban waayo gudaha dalka waxaa loo diraa caafimaad dhanka dibadda ah aadan u kaargareynaa xaaladooda waxa waaye 100% diiraddan saarnaa qofka haddii xitaa aan dalka wax looga qaban karin ilaa dibaddan geynaa sidii wax loogu soo qaban lahaa waxaan ku dadaalnaa fiiskaalaan inuu qof dhisan noqdo muuqaalka bulshada inuu soo jiidan karo dadka ciidanka waxay ka aaminsan yihiin inuu dad baaba'san oo waxba aan ahayn yihiin dadka inta badan aaminsan yihiin laakiin ciidan quwad leh awood leh oo wanaagsan oo bulshadiina aan dhibaateynin oo wax u qabanaysa aan haddana caafimaad ahaan caafimaad qaba dad oo balwad iyo daroogo min ay ka muuqato aan la isticmaalin inay yihiin aan ku dadaalnaa inta badan qaabkaasina ciidanka kumaandooska danab ay u yaalaan